السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقد وناكسن يا فيديو كله ولا لها نقو عسب سودو هذا مر والبه وحاسي خاص وقوم هاد علنيا ولا لو والبه او كقيب قادنيا سيفافينتا وناقا ام بلشدينا اوودنا وحانا ليهي جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم واطيب الله اوقاتكم وعمركم. سدح نوع oo dadka kamid ah oo noloshaada kharibaya haleynaya ayna tahay khasab inaad ka feejignaato aadna dadka ka barato. qof kasta ma aha macnaheedu inuu saaxiibka yahay calashaan wuu kugu hareereysan yahay, wuu kuu qoslaa, wuu kula joogaa, ma aha inuu saaxiib dhab ah kuu yahay. waxay ku tusinayaan shakligooda ama dhinacooda quruxda badan, laakiin at the end of the day dadka ama saaxiibka fayga ah waxaa soo baxaya wejigiisa xaqiiqda ah. sow ka taxadar, ka fogow ama iska ilaali saddexda nooc oo dadka ka mid ah. kow, dadka danaystayaasha ah ama anaaniyiinta ah. dadka danaystayaasha ah kama fikiraan sida go'aamadooda khaldan ay saameyn ugu yeelanayaan dadka kale. dantooda keliya ayaa ah inay kaa dhex raadinayaan, kugu haystaan baahidooda ogowne. dadka anaaniyiinta ah kuma danaynayaan oo noloshaada qayb kama ahaanayaan ilaa in aad wax u qabanaysa ma ahe ayna dan kugu haystaan mooye. sidoo kale kuma danaynayaan markaad keligaa tahay aad uga baahan tahay garab iyo gaashaan. waxay ku danaynayaan markay iyagu keligood yihiin ayna iskaga kaa dhigayaan inay xabiib iyo sokeeyo kuu yihiin, laakiin ujeedkoodu uu yahay intay dantooda gaarayaan. iskaga fogow dadka danaystayaasha ah, waxay u kharibayaan noloshaada si fudud. labo, dadka masayrka badan waa dad iyaga gudahooda ka dareemaya hooseyn iyo liidasho, taas oo ku sababaysa in ay ka masayraan xasdaan nimco uu ilaahay siiyo qof kale. am tuxaasiduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli, ma waxaad ku xasdaysaan dadka uwa masayrsan tihiin, u diidaysaan nimco uu ilaahay dheeraad ahaan uu isagu u siiyey. waana ficil tusinaya maskaxdooda liidata. isbarbardhigga ay isla kaa barbardhigayaan waa dhaqan aad u nacasnimo ah, sababtoo ah qof kasta waa qof gaar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala unique ka dhigay, taas oo aan marna lala barbardhigi karin midna midka kale. fiiro gaar ah u yeelo dadka iskaga kaa dhigaya inay kula jiraan laakiin kaa istaagaya meel cidlo ah maalintaad guulaysato. dib uwa joog dadka masayrka badan oo ay dhibayso guulahaada. u howlgal mar walba dantaada, tusna inuu ilaahay kaa qaadayn wuxuu isagu gaar kuu siiyey. saddex, dadka kibirka badan. kibirku waa xanuun kaas oo ka yeelaya qof walba oo ku suntan mid xanuunsan. qofka cudurka isla weynida ah qaba wuxuu leeyahay dabeecado kala gedisan. wuxuu u arkaa wax walba inay xun yihiin, dadka dhammaantoodna in ay ka wada hooseeyaan oo dad liita yihiin. ogowna walaa tamshi fi lardi maraxan innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala duula. dhulkana jeexi maysid ayuu allah subxaana wa tacaala ku yiri, buurahana kuma gaaraysid dherer. qof walba oo isla weyn ama intuu jimicsi sameeyey jirka intuu dhistay uu isku arka dadkoo dhan inuu ka xoog weyn yahay oo uu ka sarreeya, ama intuu cilmi yar bartay u arka dadkoo dhan inuu ka aqoon badan yahay oo dadkoo dhanna ay yihiin juhalaa, ama intuu xoolo yar helay u arka uu yahay kan dunida ugu qanisan dadka kale oo dhanna ay yihiin faqiiro. waxay doonto kibirkan uu isla kibrinayo dadka iskala weynaynaya ha ku sababtee waxaad ogaataa ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur, inuusan ilaahay jeclayn mid walba oo isweynweyneeya oo faan badan. nabi maxamed sallallahu alayhi wasalamna uu yiri laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu dharratin min kibr, inuusan jannada gelaynin qof uu qalbigiisa ku jiro darro wax ka yar oo kibir ah. markaas ayay saxaabadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam ku yiraahdeen ku sali walaal xabiibkeena sallallahu alayhi wasalam, nebiyow qof walba wuu jecel yahay inuu qurux badnaado, inuu dhar qurux badan xirnaado. markaasuu ugu jawaabay nabigeena sallallahu alayhi wasalam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaala, ilaahay wuu qurux badan yahay wuxuuna jecel yahay quruxda, laakiin uu kibirkuna laba sifo ayuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam ku sifeeyey oo ah in xaqa la diido, xaqa la iska weyneeyo, xaqa la inkiro, xaqa mar walba laga kormariyo qawaaniin iyo shuruuc ay dadku la dejisteen, iyo inay dadka la iska weyneeyo oo dadka loola dhaqmo sid liidata. labadaas sifo ayuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam ku tilmaamay. sifadaas kasoo horjeedkeeda aad samayn kartana waxa weeyaan inaad aqbasho xaq walba siduu uu
uu yahay aad u qaadatid iyo inaad dadka tawaaduc u samaysid ula dhaqantid si qurux badan hadduu yahay aqoon-yahan hadduu yahay faqiir hadduu yahay qani hadduu yahay ilmo yar hadduu yahay qof aan waxba aqoonayn ay dadku ku wada sinaadaan aadan marna iska weynaynin so mar walba waxay kelmadaydu gaaraysaa oo ku socotaa dhalinyaroy sifo walba oo xun aan soo tilmaamnay ka fogow iska ilaali qofkii lehne uwa naseexee una sheer garee fideogan waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah intaan video kale ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu